ilaahay waa mahad leh nimcooyin badan na siiyo oo nabaddu ka mid tahay qaran dhisku ka mid yahay horumarka ballaaran dhinacyo badan uu ka mid yahay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ifii aakhiraba inoo hagaajiyo maanta halkan waxaanu isugu nimid danteenna guud qaran ahaan oo dhan inaynu qashinka iska basrino soomaalidu waxay tidhaahdaa aradkuna waa dan uskaguna waa doqoniimo qofka dantiisa wuu aradi karaa oo dhar iyo alaab iyo wuu waayi karaa laakiin uskagu waa doqoniimo diinteennuna waxay tidhi nadaafaddu waa qayb bay ka tahay iimaanka waxaa nasiib darro ah dadkeennu maanta in qof waliba qashinka isagoo uu sameeyo oo bannaanka ku tuuro qof waliba isagu qof ahaan inta uu sameeyo ayuu tuuraa laakiin gobonnimadu waxay tahay iyo islaamnimada iyo qofka la leeyahy waa qof goba waa qofka iska basriya qashinkiisa sagaaradaa ugu yar oo xayawaana oo ugu taag yar way asturtaa qashinkeeda bisadda guryaheena joogtaa qashinkeeda way asturtaa ummadda somalilan waxay ahayd dad goba oo aad iyo aad qashinka u neceb oo gurigooda iyo jidhkooda iyo deegaankooda nadiif yahay oo ay nadiifiyaan weli hablaheennu nadiiftii way sii hayaan iyagu hablaheennu weli iyagunbaa qashinka basriya raggeennii waxa ku dhacay garan maayo raggii waxa ku dhacay garan maayo iska dhaaf qashinka qaadka ay cunaan iyo cuntada ay cunaan iyo wuxuu hayanu suuqa ku tuuree waxaa laga yaabaa timihiisii inuu marmaro oo uska ku daayo uu ku xaragoodo diinteennu waxayna faraysaa oo tiri 5 goor maalintii weysaysta meeshaa ku tukanaysaa nadiifiya maydkiina maydhaa la yidhi haddaba raggii noolaadow ee somalilaanow waxaa kugu waajiba inaad adigu qashinka inta u badan basriso naftaada waxaad qashin ka dhigtay meeshaad dhigayso haddii taa la helo oo qof walba iska bilaabo nadaafad baynu helaynaa deegaankeenna nadiif noqonaya caafimaadkaagaa nadiif noqonaya xoolaheenna caafimaad qabaya qashinka aad tuurtay geedkiibuu maaray iyo xumaynaya geedkiina xoolihii baa daaqaya xoolihiina waad manaafaacadsanaysaa cudurkiina wuu ku imanaya markaa ma sahlana qofku wuxuu qaban karaa inuu qaban waayo dawladda hoose iyo dawladda dhexeba waxaa ku waajiba inay diyaariyaan habkii qashinkaa lagu ururin lahaa loo maarayn lahaa oo ah qashinka marka hore in la qabto meelo yar lagu ururiyo kabacdi la isu geeyo sidii loo tirtiri lahaa oo ah marka xitaa la baabiinayo inaan dhibaato inoo keenin waayo waxaanu imanka haysannaa oo guryaheenna ka buuxaa qashin marka la gubaayo haddii la gubo suna oo haddii biyaha lagu daadiyo suna oo haddii dhulku laga aasana suna intaba kaasi wuxuu u baahan yahay si cilmiyana in loo baabiyo taasi waxaa xil ka saaraya dawladda dhexe iyo dawladaha hoose waana system qoran oo in badan laga shaqeeyey maayaradii hargeysa soo maray ilaa dhowr iyo kontonkii nin waliba inbuu ka soo qabtay qoraal bay ka tegeen raasamaal bay ka tegeen aqoon bay ka tegeen waxay u baahantay in la hirgeliyo dawlad walbana waa la garanaya dawladda iyaga waxaan farayaa qolada dawladaha hoose cusub maayarada dalka oo dhan in ay horta marka hore diyaariyaan habkii bahalkaas loo joogtay lahaa nadiiftiisa maha farxisho qura in la carcarrown ilaa intiina garanaysaa dee meelaha raflaa soo gaadheene intaa nadaafadda waa la waday laakiin haddana waa lagu guulaysan lahaa waayo dadkaani ka soo go'in dawladaha hoosena way dabacsan yihin waxaa laga rabaa wixii lagu heshiiyey in la fuliyo hebelow qashinkaagii maad basri waan ku ganaaxaya ceeb maaha in laga carcarrana maaha sidee loo baabiinaya waa hawl inoo taalla waxaan ku darayaa deegaankeennii waxaa ku soo batay dhir dalka abaar ka dhigaysa tiin iyo geedka garawaan la ydhaahdo iyo keligii noole saddexdaa geedba waxaanu u hayaan dhib badan waynu baabiin karraa nin waliba intuu degaya xabaddu intaanay dhalinbu ka qaadi karaa waa soomaalidu intay degtoo dhan labadaa geed ba afiyey labadaa geedna xoolo iyo daaqto iyo beeritoona nooga bixi mayso waxaan ku dardaarayaa oon ku soo noqonayaa waxaynu ku noollahay waa xoolo dhulkeennu waa roobku waa ku yaryahay xoolaha ku dhaqmaana waa nooc gaaroo waa geela iyo riyaha ku waaday xataa idin way sii yaraanaya haddaynan xoolihii caafimaadkooda ilaalin oo intaynu magaalada ku soo gadanna ay bac cunaan oo baabuurta jiidho markaa xoolaha laftoodii si aynu u dhaqaalayna ku jirta qashka inaan urur reer hargeysa
waxa shalay ahayd iyadoo aroortii aqal walba hortiisu nadiif yahay iyo magaalooyinkeenoo dhanba dee dumarku intooda way qabteen dee raggii baa qashinkii wada qashinka u badan waa jaadka raggaa abuura jaad ragga waxa u badan waa howdhaydhka raggaa abuura qashinka u badan waa waxa dhismaha ka hadha qolada dhismaha abuurta qashinka u badan waa waxa gaadiidka ka hadha saliid la tuuro iyo tuyub la tuuro iyo taayir la tuuro intaba rag baa sameeya wardee caafimaadkeenu san ku socon maayo afar inaanu dooranina qaban maayo arrintaa ka badan waa orordi way daanaya milyan iyo barba hargeysa ku nool dadkaa ka hurda inuu qaado nadaafadda ololaheeda aad iyo aad u mahadsantihiin waa inoo nadaafad iyo qof walba